waxaa goordhow maalintii afraad magaalada Muqdisho ka furmay shir hal dhinac ah oo u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo madaxda maamulada taabacsan oo ay weheliyaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyadoona ay ka maqan yihiin kulamadan madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland shirkan oo maanta ka socda teendhada Afisyooni ayaa ah mid hore aan loo qorsheynin maadaama wakiilada beesha caalamka iyo madaxda maamul goboleedyadu ay ahayd in ay shiraan maanta oo ay safgarad ka gaaraan ajendaha shir loo dhan yahay balse madaxweynaha ayaa saaka xilli hore tagay xarunta xalana si uu u fashiliyo shirka beesha caalamka iyo maamul goboleedyada oo ka duwankii maalmihii la soo dhaafay ka socday xalane beesha caalamka ayaa markan garwaaqsatay in madaxweyne Farmaajo ku guuldaraystay inuu miiska wadahadalka iskugu keeno madaxda maamul goboleedyada dalka iyo saamilayda siyaasadda ee Soomaaliya si heshiis looga gaaro doorashooyinka iyo khilaafaadka ka soo laabtay dhinaca kale waxa sii kordhaya cadaadiska weyn ee lagu hayo madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo lagu eedeeyay inuusan diyaar u ahayn in uu la fariisto dhammaan saamilayda siyaasadda ee dalka si xal looga gaaro xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya madaxweynaha oo laga rabay inuu qaato doorka ugu fiican ee isku keenida qaybaha kala duwan ee bulshada mucaaradka iyo muxaafadka ayaa midaasi ku guuldaraystay isaga oo maalin walba ka shaqeeya inuu abuuro marxalado caburin iyo khilaafaad horin iskugu jira cadaadiska ugu weyn waxa uu madaxweyne Farmaajo uga imaanaya wakiilada safaaradaha iyo dawladaha xiriirka dawladda Soomaaliya iyadoo ay xusid mudan tahay in madaxweynaha uu helo wicitaano toos ah sida ilo xog ogaal ay sheegeen kuwaas oo uga imaanaya safiiro iyo madax sare oo ka kala tirsan qaramada midoobay midowga Yurub jaamacadda Carabta iyo midowga Afrika hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale dacwad ka gudbiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii uu caburiyay 19 Febraayo banaanbax ay qorsheeyeen midowga musharaxiinta oo rasaas nool ay u adeegsadeen ciidamo uu adeegsaday madaxweynaha kuwaas oo sidoo kale weeraray madaxweynayaashii hore ee dalka madaxweynaha ayaa sidoo kale lagu haystaa sababta dawladdiisu ay la heshiisay Cabdirashiid Janan oo ahaa wasiirka amniga Jubbaland kaasi oo ku eedeysan dambiye ka dhan ah bini'aadanimada iyo xasuuq dad shacab ah waxa uuna ka baxsaday gacanta ciidamada booliiska Soomaaliyeed hay-adda Amnesty International oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dawladda Soomaaliya ka dalbatay inay cadaaladda marsiiso Cabdirashiid Janan kaasi oo hadda gacanteeda ku jira si ay cadaalad u helaan dadka dhibanayaasha ah Cabdirashiid Janan oo la dagaashanaa dawladda federaalka ayaa shalay soo dhiibay isagoo wata in ka badan 400 oo ciidan ah iyo ku dhawaad 40 gawaari oo gaadiidka dagaalka waxuuna ku biiray ciidamada dawladda ay ku daabushay gobolka Gadaa ee koonfurta dalka madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu xasarado ka abuuray deegaano nabdoona oo ka tirsan Puntland halkaas oo ay ka dhaceen banaanbaxyo lagu taageerayay dhahar oo ka tirsan deegaanada dawlad goboleedka Puntland banaanbax ballaaran oo ay soo qaban qaabisay dawladda federaalka ayaa shalay ka dhacay waxaana looga soo horjeeday madaxweyne Deni iyo madasha badbaado qaran waxaan rabnaa Farmaajo ma doonayna Deni ayay ku qayladhaaminayeen dibadbaxayaasha sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa loo arkaa inuu xasarad ka abuuray geeska Afrika iyadoo oo dagaal diblomaasiyadeed uu kula jiro dawladda Kenya isagoona ciidamo xamar uu ka qaaday ku daabulay xuduudka labada dawladood ay wadaagaan sidoo kale waxa dunida oo dhan isha ay ku haysaa ismariwaaga ka taagan doorashada Soomaaliya iyaga oo ka cabsi qaba in madaxweynaha muddaxileedkiisu uu dhamaaday inuu Soomaaliya u horseedo dagaal sokeeye xilli 30 sano ka badan uu burbursanaa dalkan Soomaaliya ila xog ogaal ah ayaa warqad waxay u sheegeen in madaxweyne Farmaajo uusan diyaar u ahayn doorasho taa beddelkeedana uu ka jecel yahay inuu dagaal sokeeye ka dhaco dalka Farmaajo ayaa hore u sheegay inuu haysto ciidan iyo lacag ku filan oo uu ku dagaalami karo waxaana dhowr jeer ka fashilmay qorshayaal waaweyn oo ka dhan ahaa midowga musharaxiinta oo madaxweynayaasha hore ee dalka ay ku jiraan shirka ka socda Afisyooni ayuu ku guuldaraystay madaxweyne Farmaajo inuu iskugu keeno dhammaan madaxda maamul goboleedyada waxaana beesha caalamka ay qorsheynayaan xalana inay shir ugu qabtaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirkaasina wuxuu noqon doonaa mid uu ka maqan yahay madaxweyne Farmaajo maadaama uu horay ula shiray madaxda maamul goboleedyada taabacsan